waxaa madasha shirka afgarad iyo ay taalaysa dooxada dagaar ee gobolka Sanaag soo gaadhay wafdi balaadhan uu hogaaminayo suldaanka guud ee beelaha bariga Burco Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Muuse waxaana suldaanka iyo wafdidiisa uu hogaaminayay kaga hortagay duleedka magaalada Yufle madax dhaqameed siyaasiyiin aqoon-yahan culumaa u diin waayeel waxgarad iyo dadweynaha u tiro badan intaasi kadibna waxaa suldaanka iyo wafdidiisa loo soo galbiyay dhinaca madasha shirka afgarad iyo ay taalaysa dooxada dagaar halkaas ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha gudida shirka Cabduqaadir Faarax Maxamuud oo ay weheliyaan salaadiin iyo boqorada beesha oo dhamaantoodba halkaasi ka soo jeediyay weero ku aadan soo dhaweynta suldaanka guud suldaankii guud ee beelaha habar jalo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali aanu halkan ku soo dhaweyno oo madasha noogu yimaado suldaanka iyo waftiga la socda soo dhawow baan leenahay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali madashaan gogasha dhignay biciida Yunis waa madashii ku soo dhawow meeshan waa meeshaadii waa gurigaagii gurigaad marti ku tahay maaha ku soo dhawow caleemo qoyan iyo sharaf iyo kamal waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa suldaanka guud Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Muuse iyo wafdigu hogaaminayay oo shirka u yimi xidhitaankiisa aad iyo aad bay farxad noogu tahay shirka guul bay u tahay ummadan suldaan ku soo dhawow waa ummadii aad suldaanka u ahayd waa ummadii ku dooratay farxad bay noo tahay waa maalin caam ah oo goobtan aynu joogno ee dagaar ee uu ka furan yahay shirka afgarad ee beelaha biciida Yunis iyo Buraale waa maalin aad iyo aad guushiisii u soo hoyatay oo uu nabadqabina ku soo gaadhay suldaankii guud ee beelaha habar jeclo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Muuse ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa gaarsiinta uu ina soo gaarsiiyey tolkuna waa tashaday arrimaha uu ka tashadayna waxa weeye waa daris wanaag waa nolol wanaagsan oo lagu wada noolaado danihiisa uu ka tashaday halka waxaan ku soo dhaweynay suldaankii guud ee beesha habar jeclo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Muuse walaal suldaan soo dhawow shirka ku soo dhawow waxa kale oo iyaguna goobta soo dhaweynta ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda siyaasiyiin xildhibaano iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan oo dhamaantoodba muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin imaantika suldaanka guud iyagoo sheegay in muddada uu shirku socday diiradda lagu saaray arrimaha nabadgelyada dhaqanka horumarinta deegaanada beeshoodu degto suldaan beel baa halkan ku shirtay biciida Yunis iyo Buraale Yunis waxay u shireen nabad waxay u shireen barwaaqo waxay u shireen wax ummadda aad suldaanka u tahay danwa waxay u shireen wax iyo qaranka Soomaaliland ba maslaxad ah way tashadeen taladoodana muqaalafo iyo wanaag ayay ku dhameysteen adigana waan kugu soo dhaweynaynaa inaad ku ducayso suldaanka guud ee beelaha bariga Burco Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Muuse ayaa isaguna dhankiisa ka mahad celiyay soo dhaweynta loogu qaabilay waxaan idinka mahadnaqayaa idinku salaamayaa salaan waji furan iyo qalbi faraxsan ka soo baxday oo muxubbo iyo kalgacal xambaarsan baan idinku salaam sharafta lay sameeyey iyo niyo wanaagga iyo gacaltinimada la ii muujay baan aniguna galabta ka mahadnaqayaa khudbadayda waa dambaysiisanaya waxaan aanan ilaaweyn baa ay tusteen waxaanan ilaaweyn baa ay tusteen waxa ay idinku samaynaysaan wanaaga ee ay idinku soo saartaan qofka quraha ku faani karaya ee sharaf u samaysa suldaanka iyo wafdidiisa uu hogaaminayo oo ka soo kicitamay gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa ujeedada safarkooda daaran tahay ka qaybgalka munaasabada xiritaanka shirka afgarad iyo ay talis ee balweynta biciida Yunis oo muddooyinkii u dambeeyay uga socday deegaanka dooxada dagaar ee galbeedka magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Maxamed Xidig telefishinka caalamiga Ariel TV Ceergaabo